waxaan dhaleecayn iyo eedeyn midda ugu sarreysa u soo jeedinayaa gooni goosatada jabhadda ama maleeshiyada ka soo duushay Hargeysa ee ku soo duushay shacbiga Soomaaliyeed ee faramaran ee degan magaalada Laascaanood. waxaan leeyahay ka baxaan waxa ku soo harta gacmaha ku jira maxay habay yaraatee wax gacmo ah oo ku jira ma jiraan. nin shalay sheega jiray inuu u dagaalamayo xaq iyo xuquuq oo Muuse Biixi la dhaho oo hogaamiye beeleed ah oo hogaamiye maleeshiyaad ah oo hogaamiye gooni goosata ah ayaa wixii uu shalay ka dagaalamaya maanta wuxuu rabaa shacbiga Soomaaliyeed qayb ka mid ah inuu ku qasbo. anagu shalay waxaan taageersanayn Muuse Biixi halgankiisa waxaan dhibayay magaalada Hargeysa in rajiimka halkan Muqdisho ka jiri jiray inuu ku garaaco madaafiic dumarka iyo caruurta. hadda 32 sano kadib ayaa Muuse dumarka iyo caruurta wuxuu ku garaaca madaafiic. intaas waxa dheeriye rajiimka halkan ka jiri jiray ama kaligii taliye meeshan ka jiri jiray haba ahayd kaligii taliye laakiin dawlad la aqoonsiyo ka socdo. kan Muuse Biixi waa gooni oo goosato waa hogaamiye maleeshiyaad wax la aqbali karan maaha. gacmo shisheeyro kuma jiraan waxa ku jirta oo kili ah waa waalida Muuse Biixi. Muuse Biixina waa insaf siman looga soo horjeesto oo laga difaaco dumarka iyo caruurta dulman ee uu madaafiicda iyo gantalaha dhacay. horta haba yaraatee wax la dhaho Somaliland ma jiraan. it was British Somaliland waxay ahaan jirtay 60kii ka hor British Somaliland sida halkan Muqdisho ay u ahaan jirtay Italian Somaliland. marka Talyaanina waa tagay Ingiriisna waa tagay magaca British Somalia oo Somaliland laftigiisa ayaa marin habaabin ah because Somaliland waa dhulkii Soomaaliya. Muqdisho waa Somaliland, Boosaaso waa Somaliland, Baydhabo waa Somaliland, Garbaharey waa Somaliland, Hargeysa waa Somaliland. no more in loo aqoonsado